ayaysan ka imaan haceebeen isboortiga in caruuraynaga daadin waa doornimo talaadaha taariikhduna waxay ku beegan tahay shanta bisha Maay sanadka 2019 alaabo barnaamijkan warbixino falanqeymo rikoore iyo wararka suuqan ku soo baahinaa 40 daqiiqo ee soo aadan waxyaabaha barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka qayb noqon doona falanqeynta kulamada tartanka Champions League caawa lugta labaad ee wareega 16 laga ciyaari doono iyo falanqeyn guud oo ku saabsan kulanka Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta ee Ajax Amsterdam warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan Real Madrid oo si wanaagsan u gaari karta wareega 8 UEFA Champions League markay soo dhaweynayaan caawa kooxda Ajax Amsterdam oo aan rikoor fiican ku haysan kulamada ay ku ciyaartay garoonka Santiago Bernabeu warbixin la xiriirta ciyaarta caawa xaqiiqooyinka labada kooxood guud ahaan heerkan iyo sida ay ku soo gaareen xiriirada qarsoon ee u dhaxeeya ciyaartooyda iyo macallimiinta iyo guud ahaan wax waliba oo ku saabsan ciyaartooyda safan kara kuwa dhaawacyada qaba kuwa shakiyada qaba iyo macallimiinta shirarkii jaraa'id oo ay kaga hadleen kulankan marxaladda isku wajihi karaan warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan maanta sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa Ajax iyo Real Madrid marka ay timaado in rigoorayaal lagu kala baxo ciyaaraha tartanka Champions League marxaladda knock-out-ka iyo rikoorada ay ka haystaan guud ahaan falanqeynta kulanka Borussia Dortmund iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaad sidoo kale barnaamijka maanta ku dhageysan doontaan marka laga soo tago arrimaha Champions League waxyaabaha kale aad maqli doontaan waxaa ka qayb noqon doona kooxaha Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo haatan isku diyaarinaya inay dagaal ku galaan kabtanka kooxda AC Milan ninka lagu magacaabo Rimangoli warbixin ku aadan daafacan iyo sida uu ugu biiri karo kooxaha Spain iyo Ingiriiska ka kala dhisanaya barnaamijka ku dhageysan doontaan sida laga soo xigtay wargeyska Telegraphna Manchester United iyo Paris Saint-Germain waxay ku dagaalamayaan saxiixa 18 sano jirka lagu magacaabo Jadon Sancho ee u ciyaara kooxda Borussia Dortmund kaasi oo noqon kara ciyaartooygii ugu horeysay ee Ingiriiska ee 100 milyan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda looga qaato wararka goosgooskii aad maqli doontaan waxaa ka qayb noqon doona kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo haatan macalinkeeda shaki weyn uu ku jiro mustaqbalkiisa Clarence Seedorf oo hore kooxdan ugu soo ciyaaray waxa uu sheegay inay sharaf u noqon doonto hadii loogu yeero shaqada macalinimo ee kooxda Santiago Bernabeu ku ciyaarta Bayern Munich oo xiiso u qabta 18 sano jir ka tirsan kooxda Arsenal Santiago Solari oo ka xanaaqay wararka Jose Mourinho la xiriirinaya booskiisa Real Madrid haliyay Ajax soo maray oo niyajibiya kooxaha doondoonaya Matthias Zilait ninka lagu magacaabay ee daafaca ka ciyaara Alicia Rimangoli oo ka hadlay xiisaha Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaad sidoo kale maqli doontaan Juventus oo damac kale Marca Asensio oo u ciyaara kooxda Real Madrid wakiilka Gareth Bale oo dhaleeciyay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ciyaartooyda Manchester oo taageersan in Ole Gunnar Solskjaer si rasmi loogu magacaabo shaqada kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxaan sidoo kale ka marnayn qaybaha dambe oo wararka cusub kuwa degdega wargeysyada iyo xantooda xubinteeni ogaal iyo falanqeyntan ku soo baahin doono dhageystayaasheena ayaa si toos oo live qaybta falanqeynta maanta Facebook oo barnaamijka haatan live uu ka yahay nagala qayb gali doona waxaan noo farsameynaya Maxamed Saciid marka la ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ayaa la soo gabagabayn doonaa kulamo ka tirsan marxaladda wareega 16 tartanka Champions League iyadoo kooxaha Real Madrid, Ajax, Borussia Dortmund iyo kooxda Tottenham Hotspur kulamadan ay isku arki doonaan. haddaba waxaynu eegi doonaa falanqaynta kulamada caawa laakiin aan ku hormaro xaqiiqooyinka iyo xiriirada waa markaasi ciyaartooyda kooxaha iyo sida markaasi kulamada caawa ay ugu lug yeelan karaan. aan ku bilaabay Borussia Dortmund iyo Tottenham Hotspur. kooxda Dortmund waxa uu ciyaari kara goolahayaal lagu magacaabo Briki, daafacyadana
waa Wilfred Aniji, Sergio Dialli, qadka dhaxana waa Dienle Witsel Rose, weerarkuna waa Zanja iyo Godse, iyadoo kooxdan ay ka maqan yahay xidiga Biasket lagu magacaabo, waxaana shaki ka qaba ciyaaryahanka lagu magacaabo Christian Pulisic oo ay leedahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. dhanka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur waxaa u safan kara goolahaye Hugo Lloris, daafacuna waa Toby Alderweireld, Sanchez, Fortugan, Auria, Davis, Sissoko, Rose, Erikson, Huminzau iyo Harry Kane. waxaa ka maqan kooxdan oo la xaqiijiyay xidiga lagu magacaabo Dele Elia, waxaana shaki qaba ciyaaryahanka lagu magacaabo Eric Dyer. Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta ee Ajaxna markaynu eegno goolahaye Thibaut Courtois ayaa ku soo bilaaban kara dhanka Real Madrid, daafacyaduna waa Regulan, Varane, Nacho iyo Carvajal, qadka dhaxana waa Casemiro, Kroos, Modric, weerarkuna waa Vasquez, Benzema iyo Vinicius Junior. waxaa ka maqan kooxdan Ramos oo ganaaxan iyo Llorente oo dhaawacan, mana qabaan wax shakiya kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kulanka caawa. Ajax Amsterdam waxaa goosha ugu soo bilaaban kara goolayaha lagu magacaabo Onana, daafacuna waa ninka lagu magacaabo Talvecchio, Bilan, Delight iyo Marzuya, qadka dhaxana waa Dion, Fran de Beek, Zanja, waa Shion ninka lagu magacaabo Nerias iyo Toussaint Tadic oo lagu daray Hakim Ziyech. waxaa shaki ka qaba kooxdan xidiga lagu magacaabo Bandi, mana jiro ciyaartooy kale oo ganaax ama dhaawac kaga maqan kooxda Amsterdam ka dhisan. kulamadan caawa ayaa noqon doona kuwa kooxaha qaar ay ku xaqiijiyaan u soo bixista marxaladda 8-damaadka, halka kooxaha qaarna ay markaasi gabi ahaanba tartanka isaga hari doonaan xilli ciyaareedkan 2018-2019. haddaba falanqaynta kulamada guud ayaynu markaan gudageli doonaa. aan ku bilaabay ciyaarta Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta ee Ajax Amsterdam. Real Madrid ayaa si wanaagsan u gaari karta wareegga 8 tartanka UEFA Champions League markay soo dhaweynayaan caawa kooxda Ajax oo aan rikoor fiican ku haysan Santiago Bernabeu. goolka kala yimid Karim Benzema iyo ninka bedelka ku soo galay ee Marc Asensio ayaa keentay Madrid in 2-1 ay ku soo badiso Ajax garoonkeeda Johan Cruyff Arena 13 bishii February ee sanadkan. kooxahan waxay kulmeen 13 jeer tartamada UEFA. Real Madrid ayaana badisay 8 iyadoo kooxda Ajax 4 ay badisay, waxaana barbara ay galeen halka kulan ee soo haray kaasi oo lagu ciyaaray garoonka kooxda kubadda cagta ee Ajax ee lagu magacaabo Johan Cruyff Stadium. xilli ciyaareedkii 1967-68 ayuuna kulankaasi dhacay. Madrid waxay ku guuleysatay lugta labaad ee kulankaasi barbaraha ku dhamaado oo 2-1 ay ku badiyeen markii lagu ciyaaray caasimadda Spain xilli ciyaareedkii 1967-68. Ajax ayaa ku guuleysatay 4 kulan oo isku xiga oo dhaxmaray labada kooxood semifinaliska koobkan oo ay ku kulmeen xilli ciyaareedkii 1972-73 markaasi oo 2-1 gurigooda ay ku badiyeen kahor inta aysan gool iyo waxba ku badin lugta labaad. xilli ciyaareedkii 1995-96 labada kooxood ayaa isku arkay UEFA Champions League markaasi oo gool iyo waxba Ajax garoonkeeda ay ku badisay kahor inta aysan 2-1 ku badin lugtii labaad. waa marka kaliya oo koox ka dhisan Netherlands ay gaareen finaalka tartankan, markaasi oo ay ahayd kooxda kubadda cagta ee Ajax Amsterdam. Marc Overmars oo hadda ah agaasimaha kooxda Ajax ayaa waqtigaasi dhaliyay goolka kaliya ee ciyaartii ka dhacday Amsterdam, iyada oo Edwin van der Sar oo haatan ah agaasimaha guud ee kooxda Ajax iyo Dani Bilan oo ah aabaha Dilay uu ciyaaray kulankaasi. Madrid ayaa ku guuleysatay kulamada u dhaxeeya labada kooxood. intaasi wixii ka dambeeyay Ajax ayaana lagu garaacay kulamada labada lug ee wareegga gruubyada xilli ciyaareedyadii 2010, 2011 iyo 2011, 2012, 2012 iyo 2013. waxaa laga dhaliyay 9 gool saddexdii kulan ee ugu dambeysay Ajax ay ku ciyaaraan garoonka Santiago Bernabeu, waxaana ay dhaliyeen dhankooda kaliya 1 gool. Karim Benzema ayaa rikoor fiican ka haysta kulamada Ajax isagoo bishii Oktoobar 2012 shabaqa soo taabtay kulankii 4-1 ay kaga badiyeen Amsterdam. bishii November 2010 ayuu sidoo kale gool dhaliyay isaga oo mar kalena shabaqa soo taabtay kulan uu wajahay kooxda Ajax oo ku dhamaaday 3 gool iyo waxba bishii September ee sanadkii 2013.
Real Madrid ayaa xilli ciyaareedkii 23aad ka soo muuqanaysa UEFA Champions League iyadoo mid kasta oo kamid gaaraysay marxaladda wareegga 16 ee tartankan. Real Madrid waxay haystaan 13 koob oo tartankaana waxaana ay gaareen semifinaliska ama wax ka badan mid kasta oo kamid 8 xilli ciyaareed ee u dambeysay. guud ahaanna waa markoodii 49aad oo tartamada Yurub ay ciyaaraan waana in ka badan oo koox kasta. Madrid ayaa doonaysay inay gaarto wareegga 8 dhamaadka tartankan sanadkeedii 9aad. wareegga 16 waxay haystaan rikoor 9 guul iyo 6 khasaaro waxaana marxaladan ay ku harayeen intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2010 laakiin waxay badiyeen 8 sano ee ugu dambeysay. xilli ciyaareedkii 2017-2018 Madrid ayaa 3-1 ku garaacday Paris Saint-Germain waxaana 2-1 ay kaga badiyeen kulamadii lugta labaad. Maringuez ayaana kooxaha Eredivisie waxay ka haystaan rikoor 6 guul iyo 3 khasaaro. guuldaradii ugu dambeysana waxay ka soo gaartay PSV Eindhoven ciyaar ka tirsanay tartankan oo dhacday xilli ciyaareedkii 1987-88. Madrid waxay badisay 5 kulan ee ugu dambeysay oo ay garoonkooda kula ciyaartay kooxaha reer Holland mana kala kulmin wax khasaaraha tan iyo 1995 markaasi oo ay khasaaro kala kulmeen kooxda kubadda cagta ee Ajax Amsterdam. rikoorka guud oo ay Maringuez garoonkooda kaga haystaan kooxaha ka dhisan Netherlands waa 10 guul 1 barbaro iyo 2 khasaaro. xilli ciyaareedkan Madrid ayaa ku dhamaysatay kaalinta koobaad ee groupka G iyadoo 12 dhibcood urursatay inkastoo labada kulan ee kooxda CSKA Moscow ay wajahday laga badiyay. rikoorka Madrid marka ay timaado in rigooro lagu kala haro kulamada knock-out-ka ee tartankan waxaa markaasi uu noqonayaa 5-3 ay Atletico Madrid kaga badiyeen finaalka tartankan markaasi oo rigoorayaal ay ahayd xilli ciyaareedkii 2015-2016 sidoo kalena Bayern Munchen ay xilli ciyaareedkii 2011-2012 semifinaliska tartankan 3-1 rigoorayaal kaga badiyeen kooxda Real Madrid. sidoo kalena xilli ciyaareedkii 1986-87 ayay kaga badiyeen rigoorayaal kooxda kubadda cagta ee Juventus. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Red Star Belgrade ayay xilli ciyaareedkii 1974-75 6 khasaare rigoorayaal Real Madrid kala kulmeen taasi oo ka dhigan 4 jeer oo ay marxaladda knock-out-ka rigoorayaal isla gaaray Real Madrid in 3 ay ku badisay halka marna khasaare ay la kulmeen. Ajax dhankeeda markaynu eegno Ajax ayaa badisay kaliya 2 kulan oo kamid 15 kulan ee ugu dambeeyay oo ay gurigooda kaga hor yimaadeen kooxaha Isbaanishka ka dhisan. kulankii 2-2 ay la galeen Celta Vigo inkastoo uu ka sii horeeyay 6 guul darro oo isku xigta haddana kooxaha Isbaanishka rikoorka ay ka haystaan ma wanaagsana. rikoorka Ajax kulamada labada lugood ee xiriirka oo ay la ciyaareen kooxaha Isbaanishkana waxa markaasi uu noqonayaa 7 guul 2 khasaaro. xiriirada qarsoon ee ciyaartooyda iyo macallimiinta labada dhinac markaynu eegnana Klaas-Jan Huntelaar waxa uu Madrid kaga soo biray Ajax bishii Janaayo 2009 isagoo dhaliyay 8 gool 20 kulan oo uu saftay kooxdan ka hor inta uusan ka tagin 6 bilood kadib. weeryahanka reer Netherlands waxa uu wajahay kooxda Real Madrid 4 jeer waqtigiisii Schalke isagoo dhaliyay 3 gool waxaana ku jiray 2 uu ka dhaliyay kooxda Real Madrid isagoo ka tirsan Schalke kulan ka dhacay Santiago Bernabeu xilli ciyaareedkii 2014-2015. Nicolas Telvecchio waxa uu ku soo qaatay xilli ciyaareedkii 2012-13 ama horyaalka Spain kooxda ka tirsan heerka labaad ee Real Murcia. Andre Onana waxa uu ka soo baxay akademiga Barcelona laakiin marnaba uma ciyaarin kooxda koobaad ka hor inta uusan ku biirin kooxda Ajax sanadkii 2015. sidoo kalena caawa kulan kale oo ka tirsan marxaladda wareegga 16 tartanka Champions League waxaa isku arki doona kooxaha Borussia Dortmund iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. ciyaartan Jarmalka ka dhici doonta waxa markaasi ay tahay mid rajada koox waliba ay doonayso inay ku xaqiijiso wareegga quarter-finaliska tartankan. ciyaaraha caawa ayaa la daawan doonaa saacad isku mid oo ah 11 habeenimo ama 5 saac oo habeenimo qofba sidoo u garanayo. haddaba qaybaha fikradaha dhageystayaasha si live ah iyo Facebook noogu soo gudbin karaan.
hagaag ismaqal wacan oo wanaagsan meel waliba waa Champions League iyo kulamada caaw ayaan falanqaynta ka dhigan doonaa oo dhageystayaasha sida tooska ah live-ka haatan noo daawanaya ku soo gudbin karaan fikradooda laakiin markan warbixinada barnaamijka iyo qaybaha kale ee noo hara ayaynu guda gali doonaa tababaraha kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain Thomas Tuchel waxa uu ku dhawaaqay go'aankiisa ku saabsan isbarbardhigga xidiga adduunyada ka yaabsanaya ee Kylian Mbappe iyo xidiga Barcelona Lionel Messi isagoo sheegay in xidiga reer Faransa uusan ahayn Messi laakiin waxa uu ku jira wadadii saxda ahayd ee uu kaga mid noqon lahaa gooldhaliyaasha ugu fiican adduunyada kadib markii uu qaab ciyaareed cajiiba ku soo baxay waayihiisii kooxda Monaco Kylian Mbappe ayaa u dhaqaaqay kooxda Equatorialka Ligue ee PSG bishii Agosto 2017 tan iyo markaasina waxa uu noqday mid muhiim u ah kooxda Thomas Tuchel ee Paris Saint-Germain xidiga Faransiiska ayaa gaaray 50 gool tartamadoo dhan kooxdiisa PSG kadib markii uu shabaqa soo taabtay kulankii Rennes ee Sabtidii 20 sano jirkan waxa uu dhaliyay 50 gool isagoo caawiyay 28 kale 76 kulan oo uu saftay kooxda hoggaanka u haysta horyaalka Faransiiska ee Ligue xilli ciyaareedkan Mbappe waxa uu leeyahay 24 gool oo horyaalka Faransiiska waxaan uu kula tartamayaa abaalmarinta koobka dahabka ee qaaradda Yurub weeryahanka kooxda Barcelona Lionel Messi kaasi oo 25 gool dhaliyay maahan wax la yaabo isbarbardhigga Messi iyo Mbappe waxa uu leeyahay xirfad cajiiba iyo taariikh sare marka loo fiiriyo da'diisa ayuu yiri tababaraha Paris Saint-Germain Thomas Tuchel isagoo la hadlay Rai Ferdinand oo ka tirsan BT Sport tababaraha ayaa yiri wiilkan waa gaajeysan yahay waxa uu leeyahay shakhsiyad weyn 20 sano jirkiis waxa uu doonayaa in wax badan uu ku qabto ayuu hadalkiisa ku daray maahan mar waliba wax sahlan in uu maamulo awoodiisa sababtoo ah shakhsiyad waaweyn ayaa mar waliba la tartamaya oo kuma jira jid fudud waxa uu si xoogan ugu jiraa tababarka waana wiil aan caadi ahayn aniga ahaan waan la yaabaa shakhsi ahaan sida uu la tartamay xidigaha waaweyn ayuu hadalkiisa ku daray tababaraha kooxda Paris Saint-Germain Thomas Tuchel Mbappe waa gool dhaliye ma ahan Messi waxa uu noqon karaa gool dhaliyaha ugu fiican adduunyada waana midka saxda ah marnaba kuma fakirin isbarbardhigga isaga iyo Messi laakiin Ronaldo Nazario Dalimio waa tusaalaha ugu fiican ee aan barbar dhigi kara ayuu yiri tababaraha kooxda Paris Saint-Germain Thomas Tuchel oo amaanayay xidigiisa Kylian Mbappe iyadoo PSG ay diyaar u tahay inay wajahdo Manchester United lugta labaad ee wareegga 16 Champions League Barcelona ayaa wajihi doonta Girona Super Cup di Catalonia arbacada iyadoo haatan labada kooxood barajo fiican ay ka leeyihiin xilli ciyaareedkan inay ku guuleystaan tartanka Champions League Messi iyo Mbappe ayaa labaduba haatan ah ciyaartooyda ku dagaalamaya abaalmarinta koobka dahabka ee qaaradda Yurub waxaana midkood uu markaasi doonayaa inuu ku guuleysto abaalmarintan kadib markii hoos u dhac uu sameeyay weeryahanka Juventus Cristiano Ronaldo Manchester United ayaa wajahaysa dagaal weyn oo ay ku galayaan saxiixa xidiga diiradda u saaran tahay ee Jordan Sanchez iyadoo kooxo badan xiisa ay u qabaan ciyaaryahankan tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay Manchester City una wareegay Borussia Dortmund sanadkii 2017 Sanchez ayaa noqday mid ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican dunida inkastoo 18 sano jir uu yahay xidiga reer England haddana waxa uu xiisa ka helayaa kooxo waaweyn oo ka dhisan qaaradda Yurub Sanchez ayaa xilli ciyaareedkan ku qaadanaya waqti fiican Bundesliga Borussia Dortmund ayaana hoggaanka u haysta horyaalka isagoo 9 gool dhaliyay halka 14 kale oo caawin uu sameeyay kooxdiisa tartamadoo dhan Sanchez ayaa muujiyay inuu yahay qayb muhiim oo ka tirsan qorshaha tababare Luciano Veva xilli ciyaareedkan Manchester United waxaa ka maqan xidig garabka midig ee weerarka ka ciyaara taasi oo keentay inay indhaha ku hayaan xidiga lagu magacaabo Jordan Sanchez oo u ciyaara Borussia Dortmund si kastaba ha noqotee PSG ayaa lacag badan ku qarash garaysay ciyaartooyda ay u baahan tahay waxaana tani ay fursad u noqon kartaa kooxda Thomas Tuchel inay la soo siixdaan da'yarkan Sanchez ayaa qandaraaska uu kula jiro Dortmund waxa uu ku egyahay sanadka 2022 laakiin labada kooxood ee United iyo Paris Saint-Germain waxay rajeynayaan inay fursad u helaan la soo wareegida xidigan haddii uu dhaqaaqo Sanchez oo kooxaha ka dhisan qaaradda Yurub waxa uu noqon doonaa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee reer England kaasi oo 100 milyan oo lacagta ganiga suuqa kala iibsiga ciyaartooyda looga qaato way iska caday Sanchez in uu noqon doono mid ku biira midkood kooxaha labada ah ee PSG ama Manchester sanadka soo socda haddii uu sii wato kartidiisa haatan ay ugu ciyaarayo kooxda Borussia Dortmund
si kastaba haatee qiimaha 100 milyan ee geni ayaa laga yaabaa in ay dib u celiso damaca labada kooxood ay ka leeyihiin ciyaaryahankan lagu magacaabo Jadon Sancho. Manchester United waxay la ciyaari doontaa PSG lugta labaad ee wareega 16 iyadoo dhanka kalena Sancho uu doonayo in kooxdiisa Dortmund uu ka caawiyo kulanka ay wajahayaan caawa kooxda Tottenham Hotspur.